ilmahaaga dilaysid ama abusaysid ama aad silcinaysid Soomaali hadaan ahay ilmaha mar walba waxaan ka korinaa jirka cunugaaga markuu caata yahay stress bad qaadaysa mid dariska kugu caynaysa mid saaxiibtaaba kugu caynayso in adeertaaba kugu caynaysa ilmaheeda maxay la qalifayeen cunto ma siismiyana waxba ma siismiyana kan miya laakiin cunugaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله هو السلامي ميل بأدوك جوكتان وولاشي نجم MBR هالك دقة دابن السنة و MBR قروح دمر سود وبعد قعمة فرق قلب فرنية سافيها هلا إن الفيديو لايك أسرتد وأدمار تايب سبسكرايب كنا سرتد أصحاب هذا لسي وذاكتد ما شاء الله سود وبعد عاو حكاه لنا دبات تذكر هايستو والدين الصوماليات iyo ilmaha qurbaha lagu dhalayo maxaa keeno inay isfahmi waayaan waalidka Soomaaliyeed iyo ilmahooda maxaa keenay inta badan majority-ga markii laga hadlo mar walba markii la hadlayo waxa laga hadlaa waxa majority-ga ayaa laga hadlaa laakiin ilma iyo waalidkooda isfahansan oo qurbaha ku dhashay way jiraan way buuxaan laakiin majority-ga ayaa ka hadlaynaa maxaa keenay waalidka ilmaha inay isfahmi waayaan maxay tahay dhibaatada waalidkii Soomaaliyeed qodobka u koowaad ilmaha iyo waalidiinta Soomaaliyeed waxaysan isku fahmeenin waxa kamid ah hooyadan iyo aabaha Soomaaliyeed waxay ku soo koreen dhaqanka Soomaalida waxay la soo koreen dadkoodii iyo dhaqankoodii iyo wadankoodii ay ku soo koreen ilmahana waxay ku koreen dhul gaalo waxay ku koreen dad Soomaalida ka dhaqan duwan ay ku dhex koreen hooyada cunugeeda wuxuu uga maqan yahay iskuulka 8 saacadood ugu yaraan 8 saacadood ay ilmaha iskuulka kaga maqan yihiin guriga 8 saacadood cunugaas wuxuu ku jiraa bayhad aan qayli iyo aflagaado iyo tumitaan aan lahayn qalad walba uu suubiyo waxa loola dhaqmayaa sidii qof weyn waxa la dareensinayaa inuu qalad galay meesha hooyada Soomaali ilmaheeda aysan u dul qaadan karin seconds inay disho inay ku qayliso inay buriso inay cayso sidoo kale aabaha Soomaaliyeed inuu cunuga caayo inuu cunuga dilo inuu cunuga buriyo iyo inuu wamba guriga warba ka haynin ilmaha uusan warba ka hayninba waxa keenaysa marka ilmihii waxay arkayaan dhankan oo laga kolkoolinayo qalad walba haday galaan iskuulku wax walba ay ka suubiyaan waxa loola dhaqmayaa sida dad weyn jirkooda lama dilayo cunaha laguma dhagayo kab laguma qaraacayo lama caynayo lama aflagaadeynayo lama burinayo waa dad iskoolku waxa u dhigaya training la soo siiyay ilaashanayo sharcigooda ilmaha sidan ula dhaqma la dhahay baa wax soo baraayo adiga guriga waxa joogta oo hyper oo hooyo Soomaaliyeed ah aniga waa la soo tumi jiray aniga waa la soo qaraaci jiray aniga wasaana soo ahaan jiray kama shaqeynayso qurbaha marka la joogo haddaan Soomaali nahay waalida waxa u naqaanaa in maryaha la tuuro laakiin reality-ga markii laga hadlo dad badan oo waxa jiro wada xanuunsan oo mental ill ah laakiin dharka kula qabo oo aan wax yar cunug yar oo waxaad arkaysaa 1 sano 2 sano jiro oo cunug yar oo saqiir ah aan waxba fahmeynin aabihii ama hooyadii ku dilayo maxaad waxan u fahmi weysay muxuu fahmaa adigaaba qof weyn ah muxuu aqligaaga iyo maskaxdaada ku tusin wayo inaad cunugaas si naxariis leh aad ula hadashadad wax u fahansiisid no waxaan ahay dad Soomaaliyeed reality-ga markii laga hadlo waxaan ahay dad adag waxaan ahay dad qalifan waxaan ahay dad ma aragtay wax in la tumo wax la buriyo wax la fiijiyo wax la qaraaco ku soo dhax koray seebaan marka ay xal ku heli karnaa seebay ilmaheena ku badbaadsan karnaa seeban ilmaheena ula dhaqmi karnaa oo si wanaagsan ula dhaqmi karnaa waxaan idin hayaa 2 option labada option midka aad ku dhaqaaqi kartid hadaad waalid tahay reality-ga marka kala hadlo midka labadaas midka aad ku dhaqaaqi kartid ku dhaqaaq ilmahaagana ay safe ku dareemayaan adigana aad ma aragtay ilmahaagi jaceelkaagi iyo wanaagi idinka dhaxeeyay aysan ma aragtay idinka kala fogaanaynin qodobka u koowaad waa inaad noqotid inaad wadanka aad joogtid aad class u aadid class-ad aadaysaa waxaad soo baranaysaa bayhadda la taaganahay ilaan bayhadda aad ku soo kortay waxay ahayd dhulka iyo wadankaagi waxa la isburinaayo iyo waxa la isreersanayo aad ku soo kortay laakiin meeshan saas ma aha waxaad tagaysaa school baad aadaysaa waxaad soo baranaysaa qaabka ilmaha loola hadlo qaabka ilmaha loola dhaqmo haddaa tahay hooyo carab badan ama aaba carab badan oo dhib badan oo ma aragtay maskaxiyan u xanuunsan haddaa tahayna waxaad tagaysaa therapist oo is soo daaweynaysaa kalaasiyadaas soo qaadanaysaa waxaad baranaysaa qaabka ilmaha loola dhaqmo qaabka ilmaha loola hadlo
وقضبك أكوبات قضبك لبعض inaad ilmahaaga ka haysatid oo aad wadanka geysatid oo aad wadanka wax ku soo baratid oo ilmahaagi aad maaragtay halkaas wax ku soo baratid adigoona markaa halka geyso ilmihii aadan abiyuusaynin oodan dilaynin oodan qaylinaynin oodan aflagaadeynaynin oo haddana naftaada mar walbaba laba jeeray aad training siinaysa qaabka aad ilmahaada ula dhaqmaysid hadday financially noqoto inaad ilmahaaga ku ceelin inaadan maaragtay physical abuse aad ku subinin inaadan emotional abuse aad ku subinin oo mar walbaba cunugaaga hooyo iyo aaba dareemayo u jajaban inaad tahay oo laakiin aad ka kaxaysatid wadankan qurbahan oo aad geysatid wadankii wax ku soo baratid cunug iyo diin iyo maada ka dhisan aad wadanka ku soo celisid waa qodobka labaad oo qof walba oo maanta awoodo aan kula talinayo inuu ilmaha wadanka geysto oo wadanka wax ku soo barto oo diin ku soo barto wadanka markaa geynaysidna micnaheeda maaha inaad ilmahaaga dilaysid ama abusaysid ama aad silcinaysid Soomaali hadaan ahay ilmaha mar walba waxaan ka korinaa jirka cunugaaga markuu caata yahay stress bad qaadaysa mid dariska kugu caynaysa mid saaxiibtaaba kugu caynaysa in adeertaaba kugu caynaysa na ilmaheeda maxay la qalifayeen na cunto ma siismiyana waxba ma siismiyana kan miya laakiin cunugaaga markuu maartay maskaxda in laga koriyo kuma dadaalno maskaxda in laga koriyo ilmaha kuma dadaalno hada Soomaalina laakiin ilmaha physically waa u korinaa laakiin ilmahaaga waxay kaaga baahan yihiin inaad maartay maskaxiyan aad u korisid soo marka naftiina waxa kugula dardaarmaya hadaad qurbaha joogtid inaad haybarnimada iyo maartay dhaqankan aad adag ee qalifan ee ilmaha yar oo saqiirada aan kula dhaqmayno inaan joojino aadi idin salaamaya mar labaad in mar saddexaad soo dhawaada peace and love assalamu alaykum